madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa ogolaaday in laga wada hadlo qodobada ay cabashada xooggan ka keeneen midowga musharaxiinta kuwaas oo ku jira go'aanadii maalin ka hor ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran. midowga musharaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa iska soo dhex saaray guddiyo min 3 xubnood ah kuwaas oo maanta kulan ku yeelan doona magaalada Muqdisho. guddiyada ayaa waxa ay kala yihiin 3 xubnood oo ka socda midowga musharaxiinta oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Shariif Xasan iyo Daahir Maxamuud Geeli, halka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka socdaan Saciid Cabdullaahi Dani, Cabdicasiis Laftigareen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in kulanka looga hadli doono qodobada ay cabashada ka qabaan sida arrinta soo xulidda ergada ee odayaasha dhaqanka, kaalinta bulshada rayidka iyo arrinta hubinta ergada iyo hay'adaha dambi baarista CID-da iyo khidmada tartamayaasha iyo ergada. midowga musharaxiinta ayaa xalay war ka soo baxay waxaa looga soo horjeestay habraaca doorashada aqalka hoose ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran, iyaga oo sheegay in waxa ay ka diideen farmaajo aysan ka aqbalin doonin dad kale. lagu wada kalsoon yahay horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dowladnimada. goluhu wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta, dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada. goluhu wuxuu u arkaa habraaca doorashooyinka golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 Maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah, xor ah, xalaalna ah. goluhu wuxuu in muddo hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boobo. waxaan suuragal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo lagu diiday iyaga u dawamareeyaan. goluhu wuxuu u arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis, wuxuuna ka digayaa cawaaqib-xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin 1 colaad sokeeye sida haatan dariskeena iyo dalalka kale ee nala midka ah ka dhacday, in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo ku shubasho ku dhacday, in nidaamkii dowladnimo uu waayay sharciyadii iyo aqoonsigii shacabka, waxgaradka, siyaasiyiinta doonaysa dowlad si sax ah ku dhalata, in kooxaha xag jirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada. haddaba goluhu wuxuu ugu baaqiyaa golaha wadatashiga qaran inay dib uga fiirsadaan go'aanada ay qaateen, wuxuuna goluhu soo jeedinayaa 1 in 135 oday dhaqameed loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka. 2 maadaama goluhu shacabku uu matalo beelaha, waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonnada iyo caaqilada kale ee jufada kursiga ku astaysan loo madax banneeyo xulista ergooyinka, kaalinta dowlad goboleedkan ay ku ekaato fududeynta iyo amniga doorashooyinka. 3 in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyin, gaar ahaan kuwa la xiriira dembi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyey tartamayaasha iyo ergooyinka intaba. 4 in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo 2 jeer xilligeedii horey dib uga dhacday. 5 in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigoodu sugan yahay, amniga goobtuna ay sidoo jir ah u sugaan booliska dowladda goboleedka, dowladda federaalka iyo AMISOM iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta isla markaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaannimo. 6 in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan lagu celin, halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah faldambiyeed ee maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo far argagixiso oo cadaynsita. 7 si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo, waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax banneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka. goluhu wuxuu ku adkaysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah, taasoo ah dan qaran oo masiiri ah kana gudubsan danta tartamo kasta ee xilliga dhow. ugu dambeyn, goluhu wuxuu ugu baaqiyaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahayd mid ku dhacda si xor ah, lahna sharciyad lagu wada kalsoon yahay
oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aaminaan waa mahadsantihiin. Cabduqaadir Xasan Cali, Som TV, Muqdisho. kusoo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid